isuduwaha hay'adda barakacayaasha iyo qaxoontiga qaranka ee gobolka Saraar Deeq Salebaan Axmed ayaa waxa uu kormeer ku soo maray kaamamka ay ku nool yihiin dadka barakacayaasha ah xoolahoodii ay ka dhamaysay abaartii dhowr sano ka hor ka dhacday gobolka Saraar kuwaas oo ku yaala magaalooyinka Wadaamago, Caynaba iyo Og. isuduwaha ayaa waxa uu soo indheeyay baaxadda abaarta haatan baahsan ee ka jirta deegaamada gobolka Saraar iyadoo ay ugu sii daran tahay biyo la'aan kulul oo soo food saartay dadka ku dhaqan gobolka Saraar maadaama la waayay xilli roobaadkii deyrta. isuduwaha ayaa waxa uu ka xog waramay dadaalka ballaaran ee xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo hay'adda barakacayaasha qaxoontiga qaranka Soomaaliland ugu jirto sidii gurmad degdeg loo gaarsiin lahaa barakacayaasha kala duwan ee ku dhaqan deegaamada gobolka Saraar. waxaanu kormeer ku jirnay ilaa 3 cisho waxaan kormeer ugu jirnay barakacayaasha gobolka Saraar si aan u ogaano xaaladooda annagoo aan ka maqnayn marka horeba oo la socono mar walba warbaahidooda iyo warbixintooda iyo xaaladooda ayaan haddana kormeer ku soo marnay xaaladooda biyanaaneed iyo baahidooda mar walbana u qorna baahida gudbina hay'adda qaxoontiga iyo barakacayaasha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland gudoomiyaha hay'adda qaxoontiga iyo barakacayaasha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdikariin uu og yahay gobolkiisa iyo barakacayaashiisa uu og yahay waanu ka war hayaa gacantaan ugu hayaa hawshii biyihiina waa loo dhaaminayaa hadda ayay bilaamayaan khamiista insha Allah tacaala ayay bilaamayaan injoogii qandaraaskii uu daadiyay laba hayood baan u dhaamin doona gobolka Saraar barakacayaasha gobolka Saraar sida uu lasan maxay haytooy Wadaamago Caynaba laba kaama saddexda kaam ee Og inta warqadda ayuu u qoray gudoomiyaha hay'adda qaxoontiga iyo barakacayaasha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ninkaas oo gudoomiyaha u dagaalaya gobolka dadaal badan ugu jira gobolka Saraar isagoo ka mas'uul barakacayaasha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan haddana gaar ahaan gobolka Saraar wuxuu ugu jiraa dadaal fara badan isagoo hay'ado kale oo xagga baahida wax ka tarayana soo diray oo ay iman doonaan insha Allah tacaala waxaan leenahay dadka xilli baa lagu jiraa sanadkii cusub dhamaaday oo ay hayo sanadka cusub da faaruqiyaan wixii ugu jira dakhli ay faaruqiyaan waxaa kaloo lagu jiraa xilli COVID-19kii uu dhacayo hay'adihii wax bixin lahaa oo uu saameyn ku keenay markaa wax sameynaysa dawladdeena wayna dadaalaysa dawladuna aad dadaal badan bay noogu jirtaa xaaladda abaareedna way ka war haysaa gobolka Saraar wuxuu ku jiraa gobolka lambar 1 ayaa laga qoray inay abaarta tahay markii la sameeyay qiimaynta la sameeyay taa dawladdu way gacanta ku haysaa shaqadii dadka dayarta iyo barakacayaashaba hal sugo daamin doona barakacayaasha gobolka Saraar hay'ado baahida wax ka tarayana way soo socdaan oo la soo diray oo gudoomiye Cabdikariin Axmed Maxamed soo diray marka gacanta ayaa lagu shaqeynaya kuwa hore oo soo diray WFP-na way noo shaqeysaa oo ay dawladdu wakiil ka tahay oo haruurkii bedelaysa raashinka caadiga ah bisha koowaad insha Allah tacaala marka waxa weeyaan nimca Ilaahay baynu qabnaa baahidoona waxa weey Ilaahay baa baahida daboola hala iska sabro laakiin dawladdu ma gacan madna dawladdi gacantay ku haysaa oo hawshii gacantay ku jirtaa waxa weeyaan waa in dawladda aan la oran waxa ma keenin waxa ma soo wado in la oran dawladdu way shaqeynaysaa gacantay ku haysaa hawshii si wanaagsan way u wadaa dawladdana aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa gudoomiyaha hay'adda qaxoontiga iyo barakacayaasha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdikariin Axmed Maxamed waxaan leenahay dadaalka aad gobolka Saraar dadaalka aad u wado waan kaga mahadcelinaynaa gudoomiye aad iyo aad baad mahadsan tahay gudoomiye dadaalka gudoomiye noo sii kordhi aad baan kaga mahadcelinaynaa Jaamac Boodacade warbaahinta qaranka Soomaaliland Caynaba.